iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay xabsiga dhexe magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar loo taxaabay wariyihii Somali Channel ee ka howlgali jiray magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ayaa maanta wariyaasha ka howlgala gobolka Daadmareer kulan ay yeesheen si kulul ugu cambaareeyeen xariga loo geystay wariye Maxamed Aadan Dirir ilaa ay haatan la cadaynin dambiga lagu haysto iyagoo baaq u diray maxkamadda gobolka Saraar inay sida ugu dhaqsaha badan la sharciga hor keento isla markaana ay cadayso wixii dambi ay ku haysato hadii aanu dambi lahayna loo sii daayo madaxbanaanidiisa halkan codsi ugu dirnaa ama ku codsanaa maxay tahay xukuumadda Soomaaliland taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gudoomiyaha maxkamadda iyo cid kastoo ka dambeysay xariga wariye Maxamed Aadan Dirir wariyihii telefishinka Somali Channel magaalada Caynab oo muddo toddobaad ku xidhnaa magaalada Caynab maxay tahay wax dambina aan wali soo cadayn waxaan maxay tahay haddaan nahay suufiyiinta ka howlgala gobolka Daadmareer magaalada Oodweyne waxaan ku codsanaa xukuumadda iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gudoomiyaha maxkamadda haddii aan wax sharci lagu haynin ama cadayna in la sii daayo wariye Maxamed Aadan waxaan ka xunahay xarigii loo geystay wariye Maxamed Aadan Dirir wariyihii gobolka Saraar gaar ahaan magaalada Caynab kana howlgali jiray telefishinka caalamiga Somali Channel waxaan ka codsanaa ciidamada booliska iyo maxkamadda gobolka Saraar in ay sida ugu dhaqsaha badan lagu soo daayeen wariye Maxamed Aadan Dirir waxaanu leenahay dawladda Soomaaliland u jeedinayna iyadoo wariyaashihiin barmageydo waxaan muddooyinkii ugu dambeysay inay si isdaba joog loo xiriyay wariyaasha madaxa bannaan leh waxaan leenahay dawladda Soomaaliland oo in laga digtoonaado indhahana laga laabto wariyaasha lagula kacay xariga waxaan ka xumay xarigii loo geystay wariyihii Somali Channel Maxamed Aadan Dirir kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Caynab isla mar ahaantaana aan la cadaynin dambiga lagu haysto wariyahaasi waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha maxkamadda sharafta leh gobolka Saraar iyo taliyaha qaybta inay sida ugu dhaqsaha badan leh u horkeenaan sharciga una cadeeyaan dambiga lagu haysto wariye Maxamed Aadan Dirir wariyaashu waxa weeyaan barmageydo xariguna xal noqon maayo xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in ay xariga ka daayaan wariyaasha ay kula kacayaan muddooyinkii ugu dambeeyay waxaan ka xumahay xiritaanka loo geystay wariye Maxamed Aadan Dirir ku sugan xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynab kana howlgala telefishinka caalamiga ee Somali Channel waxaan xukuumadda Soomaaliland ka codsanaynaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan leh usoo daayaan wariye Maxamed Aadan Dirir haddii wax cadayna lagu hayana in sida ugu dhaqsiyaha badan leh loo xukumo haddii aan wax cadayna lagu haynina xorriyadiisa loo sii daayo runtii mar labaad waxaan xukuumadda ka codsanayaa xiritaanka ay u geysanaysaan baryaha dambe waxaa is soo taraya xiritaanka loo geysanayo warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ha laga daayo xiritaanka loo geysanayo wariyaasha si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo noqnoqonayeen xariga loo geysanayo wariyaasha ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan barwaaqo Aadan Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Oodweyne